Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janaalkeena. Maanta waxaan ka hadli doonaa 7 qodob oo fudud oo aad isaga dhimi karto miisaanka. Run ahaantii waxaa jiraan dad badan oo ku dhiban qaabkii ay miisaanka isaga dhimi lahaayeen. Haddaba maanta waxaan kuu wadaa 7 shay oo fudud oo aad miisaankaaga isaga dhimi kartid. Miisaanka la dhimo wuxuu u muuqdaa wax iska fudud, laakiin sidaasi way ka adag tahay. Waxaa loo baahan yahay in aad maskaxdaada ku hayso haddii aad marba doonayso in aad miisaanka iska dhigto ama aad iska dhinto in uusan isla markiiba dhacaynin oo hal mar miisaankaaga dhacaynin, balse ay tahay in uu in yar u baaba'aan. Waxay la mid tahay geed aad u weyn oo caleemo badan leh oo maalinba ay ka dhacaysa hal caleen. Geedkaas ilaa laga dareemo in uu angegay ee caleen cusubna u soo bixinin. Iscaateynta qaabkaas ayay la mid tahay. Haddaba qodobka koobaad, iska ilaali cabitaanka sonkorta leh oo waxaad cabtaa biyaha caadiga ah ee cad. Haddii aad gym sameyso, haddii aad wax walba sameyso, sonkorta waa cadowga koowaad ee keena baruurta. Haddaba iska ilaali. 2. Cun cuntooyinka aan dufanka lahayn, qaasatan kuwa loo yaqaano xubuubleyda. Waxaa ka mid ah galleyda, masagada, digirta iyo wixii la mid ah. 3. Waa inaad socod sameysaa maalintii 45 daqiiqo. Ogow 30 daqiiqo haddii aad socotaba waxaa kaa gubmaayo 300 oo kalori. Sidoo kale waxaad ogaataa haddii aad joogtayso socodka oo waxaad doontana aad cunto, taas waxba kuuma tareyso. Waxaa la rabaa qofka in uu wax cuno kadibna uu nasto markii uu soconayana calooshiisa maran inuu socdo qofka. Laakiin hadda ayaan dhargay waa soconaya waxba kuuma tareyso. 4. Xilliga qadada cun qudaar badan inta aad hilib iyo caano dufan la iska buuxin lahayd. Waayo waxay u dhib ku tahay hilibka iyo caanaha dufanka leh miisaankaaga. Qodobka 5. Ha isticmaalin cunno kale marka aad dibadda ka tahay gurigaaga. Waayo cuntada guriga waad kontarooli kartaa. Laakiin haddii aad dibadda xabad rooti ah oo wax la mariyay ama hilib uu ku jiro aad hal mar soo cunto, miisaanka aad dhimaysay ayay dhibaato ku tahay. Marka iska ilaali waqtiga cuntadaadana saxo. 6. Haddii aad dhibaato ku qabto ilaalinta meeqa jeer ayaad wax cuntay, fadlan raac tilmaamahan. Waxaad soo qaadataa qaando iyo saxan eber ah. Kadib ku dul fikir ugu badnaan 20 daqiiqo. Haddii maskaxdaada ay kuu soo gudbiso in aadan qabin gaajo, cab biyo cad. Waxaad dareemi doontaa in aynan gaajo ku haynin amaba in yar oo cunto aad u baahan tahay. Qodobka ugu dambeeya ee 7. Wax ka badan 1 saac meel ha fadhinin. 5 daqiiqo markaad meel fadhiso istaag oo soco. Gacmahana kor iyo hoos u dhaqdhaqaaji. Waayo waxay muhiim u tahay jirka. Qofka haddii uu mar walba iska fadhiyo, waxaa dhacayso in uu dareemo caajis, kadibna ay u fududaato in uu cunto haweysto oo saas ku cuno wixii uu doono. Waan filayaa walaalaha qaaliga ah in aad ka faa'iideysateen 7daas qodob ee aad miisaanka isaga dhimi karto. U sheer garee walaalaha kale si uga faa'iideystaan. Wassalaamu calaykum.